waxaan idiin sidnaa qiso jacayl oo la magac baxday jacaylka baraha bulshada. qisadan dhabta waxaa qalinka u qaatay Shariif Yuusuf, anigoo ah Ibrahim Carabna waan idiin soo gudbinayaa. wiil baraha bulshada si saayid u isticmaalo ayaa maalin maalmaha kamid ah wuxuu ku arkay sawir gabar oo aad u qurux badan oo soo jiitay. wuxuu go'aan degdeg ah ku gaaray inuu cod fariin ah u reebo. wuxuu ku yiri, haddii adiga aad tahay sawirkan quruxda badan runtii aad ayuu ii soo jiitay. waxaan doonayaa haddii aad fursad ii siiso inaan xiriir kula suubiyo. haddii aad qof xiriir la lahayn waxaan hubaa inuu xiriirkeena midho dhali doono. si degdeg ah ayay ugu soo jawaabtay iyadoo dhahayso, sawirka waa aniga, qofna xiriir lama lihi. halkaas waxaa ka bilowday wadadii ay ku wada soconayeen labadooda muddo inay wada sheekaysteen. kadib waxaa soo baxay maalin inuu wiilka dhahay, waxaan doonayaa inaan call video ku wada sheekaysanno. gabadhiina way ka aqbashay oo waxay tiri waa yahay. isku markii wiilkii inuu telefoonka damiyay ayuu call video ku wacay. way ka qabatay, laakiin markii ka qabatay wiilka meesha hadal laga sugayay wuxuu la soo booday sawirkii aan arkay iyo muuqaalka hadda aan arkayo waxay isku dhaxeeyaan inta dhulka iyo cirka uu isku jiro. telefoonkana wuu damiyay, mar dambana lama xiriirin. gabadhii way yaabtay. dhowr maalin markuu wiilkii wax xiriir ah u soo suubinin ayay waxay suubisay sawirkii quruxda badnaa iyo codkii fariintii ugu horeysay ee inay issaartay ayay baraha bulshada dhigtay. wiil la dhashay wiilka oo runtii subaxii markuu soo kaco waxa caado u ah intuu shaqada aadi ka hor inuu telefoonkiisa soo qaato oo baraha bulshada waxa ka cusub uu fiiriyo. laakiin saakay wuxuu ku arkay gabar uu yaqaano sawirkeeda iyo walaalkiisa codkiisa oo saaran. wuxuu isku markii ku fikiray ama YouTube-ka lagala soo degay. wuxuu baaray YouTube-ki waa uu ka waayay fariintan iyo wax u dhiganto. kadib si toos ah wuxuu u soo wacay walaalkiisa. salaan kadib wuxuu weydiiyay, fariintan inteen ka heli karaa? markaasuu ku dhahay, maya fariintan meel kama heli kartid ee qof ayaa la wadaagay. markaasuu wuxuu ku dhahay, ee adiga qofkan aan la wadaagay ma taqaanaa? haa ayuu dhahay. waxaa loogu celiyay, oo sawirkaas ma taqaanaa? haa. isku markii wiilkii wuxuu u diray fiidiyowgii uu la yaabay ayuu walaalkiis u diray. walaalkii markuu arkay fiidiyowgii sawirkiina uu fiiriyay waxa isku markii ka soo baxay afkiisa wabiga iyo badda intay isku jiraan ayay isku jiraan sawirka iyo muuqaalkan. wiilka wuxuu ku sigtay inuu istaaga ka dhaco oo ambalaas ay qaado. halkaas ayuu telefoonka ku damiyay waayo wuu yaabay. waxaan marka u sheegaa, qofka wuu noqon karaa sawirka u saaran inuu isaga yahay, laakiin sawirka uu saartay waxa laga yaabaa sawir 20 sano ka hor inuu yahay oo hadda qofkii uu weynaaday uu hooyo noqday oo intaasoo ilmo dhashay. waxa marka adoo sawirkaaga oo hooyo hadaa saaratid dadka waxay ku ixtiraamayaan, sharafna kugu haynayaan inaa hooyo tahay. laakiin adoo hooyo ah oo intaasoo ilmo dhashay haddii sawir adoo 20 jir ah saaratid oo qofkii adoo muuqaalka kugu arkane wadnaha inuu istaaga maxaa diidayo? marka waxaan ku waaninaynaa wiilasha iyo gabdhaha isticmaalaya sawirada ida lahayn, sawira ii ka shaqo ku lahayn inay iska daayaan, kay ii ka yihiin ay isticmaalaan. midda kale wiilay gabar walba waxaan ka waaninaynaa inayna jeclaanin. intay jacayl u qaaday ka hor waa inay qofka muuqaalkiisa arkaan. ha jeclaaninina sawir, sababtu waxay tahay gabar Faransiiska ku nool sawirkeeda lagu soo saarana oo qurux badan. adhow markaa aragtane wadnaha inuu ku xanuuno ee inay gariirtaa gaaraysaa. waxaan ka waaninaynaa qof walba oo si qaldan u isticmaalaya sawir u lahayn wiilay gabar inay ka waantoobaan. haddii kale waxaa dhacayso in qof aaminin la waayo. waxaana runtii ugu dardaarmaynaa in qof walba intaad jeclaanin ka hor aad muuqaalkiisa aragto. sawir wax xiriir ah ku suubinin, sawir wax jacayl ah u qaadin. haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe-ka noo saar. haddii aad dadkii hore noogu xiran aad tahayne like-ga inoo saar. waad mahadsantihiin. mar walbana waxaan idiin soo gudbin doonaa qisooyin xaqiiqo ah. mar walbana waxaan jecelnahay waxaad ku qanacdaan inaan idiin soo gudbinno. waad ku mahadsantihiin dhegeysigii daawashada channelka aad la socotiin.